أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. درسي نحك بالله يا آيات عفرتن يكوبات يا سورة الله كمد آياته هراء إلهي وحينا وصو الشيغي نعموينكي نام موسى إلهي أوسيي تاريخ نوليتكيسي هراء انتي كهريسي رسالة أيا لغسو أهدلي درسي نحك بالله يا markii risaalada loo dhiibaayay oo uu soo gaaray da'dii risaalada loogu dhiibi lahaa ilaahay wixii uu u diray iyo sidii hawshu u qabtay ilaahay wuxuu leeyahay nabi Muuse asagoo la hadlaaya wasdana'tuka waan ku doortay li nafsi naftayda ayaan ku doortay inaad rasuul ii noqotid oo aad dadka fariin ii gaarsiisid ayaan ku doortay idhab bah anta adiga iyo aquuka walaalka bi aayati aayadaha iga la taga wala taniya hadalina في ذكري حسكينا هكدالنا نبي موسى عليه السلام مركي رسول لو دراي او لغا دغاي يا الهي وحو كيري انيغا ايا ku doortay aniga ayaa ku samaystay waxaana ku samaystay inaad marxaladan soo gaarto oo fariintayda aad qaado oo aan hawshaas ku diro ayaan ku doortay waa muhiimad aad iyo aad u adag oo ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi Muuse uu saaray wuxuuna ku yiri wasdana'tuka nafsi naftayda ayaan ku samaystay macna aan ku doortay risaaladayda inaad ii qaadid fariin aan ku dhiibaayo inaad ii qaadid oo dadka ii gaarsiisid ayaan ku doortay idhab bah anta adiga iyo aquuka walaalkii oo Haaruun ah oo nabi Muuse hore u codsaday in lagu xoojiyo si uu garab ugu noqdo oo laga aqbalay ya waxa la waalidin ogolaaday adiga iyo walaalka Haaruun ah baxa idhab bah anta adiga iyo aquuka walaalka bi aayati aayadaha iga la baxa aayadahaasna waxa hadda la siiyay oo nabi Muuse uu wataa ushi oo maska noqonaysay iyo gacantii cadaanaysay markii uu yaani kilkishiisa uu galiyo oo ka soo bixiyo labadaas aayadood aayada kale oo mucjizooyin ah waaweyn hadhow markuu fircoon u tago yaa lagu soo xoojin doonaa laakiin hadda wuxuu wataa labadaas aayadood oo ah al-yad wal 'asa marka waxa la aayadaha iga la taga adiga iyo walaalka wala taniya hadalina fi dhikri xuskaygana ka daalina oo dadku markay ducaad ay yihiin oo ilaahay diintiisa ay dadka gaarsiinayaan quluubta dadka wax loo sheegayo ilaahay baa iska leh marka waxa qada ilaahay intii la xuso ilaahay in la baryo waxyaabaha laga baryo ilaahay ay kamid tahay inuu quluubta soo jeediyo oo uu ogolaysiyo qubulna ay helaan yaani ilaahay inuu yaani iimaanka waafajiyo iyo tawfiiqda marka dhikriga ilaahay wuxuu u yahay fududayn dhibaatooyinka ka hor imaanaya qofka diinta faafinaya nabi Muuse waxa uu yiri marka wala taniya hakadaalina fi dhikri xuskayga hakadaalina oo xuskaygana aad iyo aad u haysta fircoon iyo halkaasna aada idhaba ila fircoon innahu fircoon daga uu xad gudbay fircoon u taga xadkii oo bin aadamnimada ayuu dhaafay oo xad wuxuu isu sharxay inuu rabbi yahay oo wuxuu ku yiri ana rabbukum la'ala ya ma alimtu lakum min ilahin ghayri ayuu taagan yahay marka ruux bin aadama oo sagaal bilood ku dhashay oo dadka wax u dheeriyahay aysan jirin inuu dadka isaga dhigay inuu rabbi u yahay xadgudubkii ugu darnaa ayuu gaaray fircoon waxa marka idhaba baxa ila fircoon xaqiisa aada innahu asagu daqaawu xad gudbay xadkii ayuu ka talaabay faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha hadana waxa tababar lagu siinayaa habka ay fircoon ula hadlaayaan asluubta dacwada yaani qofku marka uu dareemo in fadli badan laga helaayo ilaahay dadti in dadka loogu yeero waxa loo baahan yahay maadaama meesha uu socday meel weyn ay tahay oo arinka uu matalayo arin diin ay tahay oo ilaahay xaqiisa uu ka hadlaayo waxa la rabaa asluubta uu u maraayana inuu aqoon u leeyahay hadii kale asaga oo diin sheegaya ya waxa laga yaabaa asluubta ay ka xumaato in dadka ay si kale intay u arkaan asagaba uu sabab u noqdo dadka inay diinta ka jeestaan marka waxa la isbaraya oo quraanku wasaaisha dadka diinta loo gaarsiyo in badan inoogu soo celinaya waxa kamid ah marka nabi Muuse oo loo diray ninka taariikhda soo maray kii ugu gaalsanaa hatta shaydaanka caadiga ah la yaqaan a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim la yiraahdo fircoon ayaa ka gaalsanaa wuxuu ka gaalsan yahay yaani shaydaanku waxa la yiri caasi markuu noqdo ilaahay amarkiisa uu diiday oo lacnad ayaa kugu dhacdo naarta ayaad galaysaa wuxuu ogol yahay rabbi inuu jiro
إلهي أيو بريا يا ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون ربي يو جب يقول لك سان ضدك أنا بعد يوم فرصة أنا وهلا ربي أيو له هلك فرعون وكله هي أنا ربكم الأعلى أنا برب إذينا ما كشيطان كأيو الله طافي نينك ساس وعدك يا مركب وحلو الشيء جاي هبكي لو الشيء لها وصيلة الله مر لها أيانا الموسيقى لو تربين يا أو لو تهبرايا أو لو شيء جاي وحالي مركب فقولا له وحد كتر هذا فرعون فقولا وحد هذا له فرعون وحد كتر هذا قولا لينا هذا الجلعسان كلها لعله حالجيابا وحمدنيه فرعون يتذكر إنه وانسمه أو يخشى أما عبصده إلهي سبحانه وأجيه فرعون إنه سوان سمين فرعون إنه إلهي كعب سنين إلهي وأجيه علمي سوات عيوك أجيه هذا المسوح الله هذا كنت أدب عشد وحال لعل وحدعك إنه وان سما أو عبصده معناه هذا محيطه إنه واجب أيها إن صارن هدي عنه ذلك الدين تدرس جارسينه واجب كانوا وحويه إن أسلوبك أن وحكو جارسينه إن أنقر حنه أما قاعد الشر إيمانك قفك يعني سوء أجليسه هوشها صوت نجا إنه تعالى معها إلهي سبحانه أي عدي أو ربنا هنونك السيا عدي أو ربنا هنونك أديده لكن وحاول الشر إن هذا مرمرسية أيضا أسمين روحي أبو حشيريسي أو أوسم كلهن هذا أساس إله الله أو ورك يوحمي مركز أساس دراد واحد ميلاي أو هذا الصواب أيضا نقول نقولن روح مركز رب الدين لها دينة إلهي منة إلهي إنه هذا كو إرصد أيها الديدايا مركز أسلوبتها الإسكاب قرحية تطلع له شيء روح مركز كذب أسرع أيها تعالى حاجة مركز دعاء وإن هذا كأيدبعيان ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ضدك وحاله الدين تقويرتم سي حكمة أي كجرته وعد وناكسن وجادلهم بالتي أحسن هذا وكفي عنيه كلها الله فرعون كي وقال سنة يا وحال ليه فقولا له حتكتر هذا قولا لينا هذا الدبعسن لعله حال جيابا يتذكر إنه وانسم أو يخشى أما وعبصده خلفاء عباسيين تمتكمدة يا وحالي ولاد يا سكر الله الله ووعدي وكيري وحن السمين يسو يعني ووحش لا سوكره ورك أيكو أتي مركز وحكوري نيو عدو النبي موسى كما خير بدنيت أنا قلنا فرعون كما قال سني صاد واحد ليس محيطه هذا كما هذا الدرعسن أو في عنا إله المحيي وقيل نيسا مركز نيكي وقرابي مركز حاضر روحه شكفته أدد البدنية روحا وحشي جايو يا السجا ورتوا الله بقف أو يعني منهجكم بأكل الدوانات من إلهي بتوفيق وافجيه إنه داعي إلهي درتي النقض أيو إلهي وافجيه أصلا نبتي سحوق وكان سليم معهم قفلا حماتنا كجرنا يعني وقف بين آدم وحماتنا أي الله سعناتي أو ساس أي نوع سوء النقضي روحك إلا بدباديو أو أهل الخير لقصوا دقا عيال الرباب سلوا قد دقا مركا هذه واحد وطا بداعة في عن الدعوة إلى الله اللي يلاهدهم إن لقرحية عيال الرباب وهذا ركنا هذا الدنيا ماشي دقنايو روحي يعني أما جناعسي كجرا أما مع هذا وباهن أهنتي صدقك إنه جارسيستو هذا أو كفي عن أيوه هذه وإذا عدها إذا هي أنت لقى سمينايو عن بوراس أذكر أنت مجا الله بحنيه أنت جبا اللي فيه أنت إيه الله سمينايو أنت سبحان الله رب بين آدم كسل الله الله إن يقتل أنت يكون عضو فانفعلنت عن فانفعلنايو أي كوكن عن بوريه أي جتان أنا بورا لك هذه أنت أو إيد أهله سمية أنت أو دعاء الله سمينايا روح بدبال أباهن أو أنت النار اللي بدبال الجنة اللي جري أباهن إمي سهل الأوفي عن اللي هذا أي أباهن يعني ما كذبك إن سد بحث الله ده وقف كميدي سوء سمايون روحا إنه سن وحك عرفان وصنوا كانين دعاء ده وحلا جربا إنه يسن استجم موجنين ذاتك إنه يكسر ريان أو أيقون أي في عينهن أو يعني ذاتك إن كان كل هذا أيهن ذاتك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أي إلهي آيات في روح وذاتك إنكم ساس يا أهل جرتونا مال ما كمل واحد عكرتم إنه وحكا خلدنا إنه وحشكا هاين هدو إلهي أذيكم هجاجيو أو كتوسيو روحا ولا كان ساس كتوسين لهب دنتي ساس كجرته وإنه أقدر يا مسيرات ساس أول شيء ومركا فرعون يحاولون هذا الدبعسن كلها فقولا له وحاكر هذا قولا لينا هذا الدبعسن لها لعله محمدين يتذكر إنه وانسم أو يخشى ما وعصره قاله وحينا هذا النبي موسى نبي هارون ربنا ربنا نو إننا نخاف وحان كعب سنينا أن يفرض إنه قباط فلو علينا كركا إنه فو قباط فلو أو أن يطغى أما إنه حد قدبه عقابته إنه مرسينا يحمينته إنه حمينا إنه أدنو عقاب أيان كعب سنينا فرعون إن لقى عبصدوها يعني وحوها محاريس درن روح أصابه أو النول إنتو قبتهم يا سلام مقار كمركي لقلجنا الله تاجو أو كله أو قرحة الله تجو أيو ذلك ساس يلجري وفرعون ذي الأوتاد يعني أيو واحد فرعون كأصاحبه عليه والتديده تاجتان كذلك أيو تسجل أيوه النول
marka ruux hadda fircoon loo diray oo leeyahay fircoonkii sidaas ah u tawa wax u sheeg inuu qabto oo yaani intuu xanaaqo intii ciqaab uu dadka marsiin jiray in ka daran uu sii marsiyo wax diiday ma jirto marka hore iska sii sheegayaan wax ay ka cabsanayaan qofku marka mustaqbalka meesha u socdo marka uu og yahay diyaar garowgeeda ayuu sameeynayaa marka waxay ilaahay ilaahay oo meesha noo dirtay waa fircoon waa nin xad gudub badan waxaan ka baqaynaa inuu si xun noo galo qaala waxay ilaahay rabbana rabbigaanow inana anagu naqaaf waxaan ka cabsanaynaa an yafruda inuu gabood falo calayna korkayaga inuu ku gabood falo oo an yabqa ama inuu xad gudbo oo ciqaabta uu nimarsiinayo oo xad gudub weyn uu ka dhigo ayaan ka yaabaynaa qaala ilaahay wuxuu la takhaafa ha cabsanina inani aniga macakuma labadiina ayaan idin la jiraa asma'u waan maqli waxa fircoon uu ku hadlo wa ara waan arki waxa uu sameeyo marka idinka cabsi iska saara anigoo ilaahi rabbil caalamiin ayaa idin garab taagan ayuu ilaahay ku yiri nabi muuse iyo marka ilaahay wuxuu ku yiri qaala ilaahay wuxuu yiri la takhaafa cabsanina inani aniga macakuma ana idin la jiree ilaahay dad uu la jiro yaa ka adkaan kara wax ka adkaan kara ma jirto nabi sallallahu alayhi wasallam markii ay hijroodeen asay Abu Bakar ay godka ay galeen oo gaaladii ay u soo socdeen ay soo kor istaageen godka ay ku jireen oo Abu Bakar uu lugahooda intuu arkay rasuulka ilaahay hadii ay hoos soo fiiriyaan wayna arkayaan oo wuxuu ku yiri nabigu ma dhannuka ya Abu Bakar maxay kula tahay bi isnayni Allahu thalithuhuma laba ilaahay uu saddex ku yahay maxaa u malaynaysaa yaa wax ka qaadi kara marka ilaahay haduu qof u kaalmeeyo oo garabkiisa uu noqdo cid wax ka qaadi karta ma jirto in yansurkumullahu fala ghaliba lakum haduu ilaahay idin gargaaro wax idin ka adkaan kara male wa in yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'di haduu ilaahay idin hoojiyo garabkiina uu ka baxo yaa wax idin gargaari kara marka nabi muuse waxa loo yiri ilaahay wuxuu ku yiri ana idin la jiree socdo hawsha ay soo qabtaa marka waxay haystaan ballanqaad aad u weyn meel adag ayay ku tiirsayin ilaahay oo rabbul caalamiin ayaa garab u ah marka wuxuu ku yiri la takhaafaha cabsanina inani aniga macakum idinka idin la jiraan asma'u waan maqli wa ara waan arki yani waxa uu fircoon ku hadlo jawaabta uu idin soo siiyo iyo markaas waxa uu talaabo isku dayo oo inuu wax idin yeeleeyo ana u jeedo ana idin ka celine orda oo taga faatiyahu utaga oo faqula waxaad ku tirahdaan inna anagu rasuula rabbiga rusushiisi ayaan nahay fircoonta u tagtaan waxaad ku tirahdaan aan ku barno waxa aan nahay dad iska socdo oo caadi amanihin irge ilaahi uu soo dirsaday ayaan nahay saas ugu sheegay idinku faatiyahu utaga fircoon faqula waxaad ku tirahdaan inna anagu rasuula rabbiga rusushiisi ayaan nahay fa arsil macana bani israa'iil marka intaas kadib oo rasuulnimo aad noo ogolaato aan ku sheegnay waxaan ka rabnaa fa arsil dir macana annagana raaci bani israa'iil reebanu israa'iil wala tu'adhibhum ha'adabin yani masar oo markaas ay joogan waxa degan qowmiyad aad u weyn oo reebanu israa'iil yahay reebanu israa'iil kaas fircoon wuxuu ku sameeyaa ciqaab aad u adag ayuu marsiyo uu gumeystaa marka ilaahay wuxuu u soo saaray nabi muuse in uu reebanu israa'iil kaas fircoon uu gumeysanayo in uu ka badbaadiyo gumeysigaas oo dad xor oo ka dhigo marka si ay u xoroobaan fircoon oo dadka aad gumeysanaysay ee wiilashoodana aad gowracaysay gabdhahoodana aad dhaafaysay ee aad ku shaqaysatid xurriyad siiyo dad mustaqilina oo madax banaan han noqdeen rasuul ilaahay uu soo diray fariinta aan ku wadno bacda inaan rasuulnahay kadib waa ina dadkaas aad dhibayso adibka ka deysid yani diimuhu waxay u soo degayaan rususha waxa loo soo diray bini aadamkan la adoonsanayo ee la dhibaa in dhibka laga daayo ilaahay adoomihiisa wuxuu rabaa inay asay kaliya adoomo u noqdaan in lala wadaago oo ruux intuu meesha soo gal u yiraahdo ana adoon adii noqonaysin oo aan idin gumeysanayo ma yeelaayo asxaabtuna waxay u imaadeen oo ay u sheegeen dadkii marka ay la joogeen waxaan u soconaa linukhrij al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad adoomaha inaan ka saarno ayagu inay iscaabudaan inaan u saarno ilaahay inay kaliya ay wada caabudaan kulligood oo hal meel ay caabudaan ay dhaxdooda ayna isgumaysan mabda'a caalamku uu ku hagaagi karana waa in dadku ay saas ogolaadaan oo dadka dhaxdooda ayagu ay isku xad gudbin ayna isdulminin ayna is adoonsanin ahlu kitaabkana markaan xiwaar la sameeynayno oo ilaahay uu amray inaan la hadalno waxa lagu yiri waxa tiraadaan qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allaha wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kalima inoo siman oo ilaahay tawxiidkiisa aan isugu imaano
إلهي كلي أن وذا عابدهم إنك نحدنا يعني الربيات السنة نقننا لما أنت الضوء إلهي أن نقنا إلهي كلي ربها إنه نقضى شداس أغيرا هذا يساعد كديدانا وحد كتر هذا فقولوا شهدوا وحد كتر هذا فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون حد كتر هذا أننا مسلمين أنهي مسلمين ماذا وإن إلهي كلي له كان سما الضوء هنا نحضر أيضا إسجميسين مرة حد كتر هذا فرعون كأوتكتان فأرسل در معنا أننا بني إسرائيل بنو إسرائيل نرجر ولا تعذبهم بعذاب قد جيناك وحان نقولا نمت بآية آية ومن ربك حقي سكاتي أيام نقولا نمت هداد ربتد وحا عضينا إنا رسول إلهي نهينا وحان كنتسنا إنا معجزو أيضا أوكال آذن سمين كريم والدليل وحا عن شيئين إنا رسول إلهي نهي نومر خاتي فريسة ساس أيام نقولا نمت ساس كلها قد جيناك وحان نقولا نمت فرعون بآية معجزو ومن ربك حقي سكاتي والسلام نبت قلينا هاتو على من اتبع الهدى قفكي هنونك الرعا كوركيسة نبتقليها أهاتو يعني دين تنوى الدين ربطه إنا يددكم نبتكم نورادان نبتع سلو هلنا وإنا الدون سنين إلهي كريء لوذا عاودو دد كبير بدن أو ددك إنا كسر ريان أملايا أو ددك كحد قد بايا أو يعني ددك إنا كويهين أملايا وإنا يسنجرين ددك وإنا يسنمان هذا إسحكم عيانا شيء رعال إسجيهين oo ayagu ay isdooranayaan oo cidii xukunka ay u dhiibanayaan ayagu ay soo saaranayaan waa in la helo sidaas nabad lagu helaa marka nabad waxay ku jirtaa marka hanuunka Ilaahay oo la raaco marka wassalaamu nabadgeliyaha aato ala man ittaba'a al-huda hanuunka cidii raacda korkeeda nabad ha aato sidaas ayaan kula nimid eesaas ku dhaha fircoon way sii wadana waxaad ku tiraadaan oo kale inna qad uuhiya ilayna inna anna qad uuhiya wala waxyooda ilayna annaga waxaana loo waxyooday hadaan rusushaas ku nimid aan nahay أن العذاب عذابك على من كذب قفكي بيني كركيس إنو أهاضي وتولى جيسته عنكلهم كوش يجينا عذابك آخر نارت وحاجلايا خصوص إلهي وصادري عدي ديدة إيمانك أي أغيرانا كجيسته يعني دين ثم تقانو عنصرية قرهب الأيال نعبيه أو جنس جدا لقول نعبيه معه وحال الديدين وحيتان أفعاش ضدك أي سمين آيان أيحن عذابك وحالقو قال مركا فعلك حن قفك او سميهو ابترك قفك لو ما غلو او قفك يعني حو كسو جيدا نار لو ما غليو marka inna qad uhiya ilayna waxana loo inna anna qad uhiya wala waxyooday ilayna anna waxana loo waxyooday anna al'adab adabku ala man kadaba qofki beeniye korkiisa inuu ahaaday wa tawalla oo jeestay yani qofki rususha beeniya oo iimaanka ka jeesta ayaa la cadaabaya qala wuxuu yiri fir'aun faman rabbukuma خبجين وأيو يا موسى فرعون سأسوهيست إنه ربي مركز وحو ليهي أنا بإسوهيست إنه ربي إذين أحيان ربك لما يقرب دلاعي عاد إذن كشيغيست إن رسول ربك أيان صادر وإذن كلي أما إذن معنا ندرين ربك رسولك أتهين إذن صادر واكما هل كاسي كما ليس فرعون كير بدنيديس قال وحو فمن ربكما خبجين وأيو يا موسى قال وحو موسى ربنا ربكانو الذي وعليه أعدى سيي كل شيء وحولبا خلقه أبو رستي سسيي ثم مركز كذب هذا كهنوني يعني ربك ونصادر أنيا فرعون أذيك معه محايا لأذيكو وحما أبوري كرتب إلهي أيها وح أبورا مركو أبوري كذبنا خلقه أو أبوري مدول مثل حديثة يسيد وكنا ولان لها أيوكوها جاجي وولارتين حتى حيوانات كير الكعب wax ay cunaan ay raadsanayaan markuu ilaahay abuuro kadib yani way dhaqaaqayaan meesha ay wax ka cuni lahaayeen waaka ilaahay baa tusinaya ilmaha yar ee xoolaha ka soo qaad mesela markuu hadda u dhasho oo neef ari ah markuu wax dhalo isla markii ilmaha markuu banaanka u soo baxo ilmihi yar ay hadda dhashay naaska ayuu raadinaya oo afka loo gelinaya wakaas ama asaab afka gashanay markiiba wuu nuugaya waxa isweydiin leh ilmaha yarka ee xoolaha hadda dhashay caloosha waxa kaga jira ee gaajada la yiraahdo waxa u roon caanaha inay yihiin halkan ay ku jiraan yaa u sheegay ilaahay baa u sheegay subhana rabbigaas ayaa anaga rabbi noo ah qaala nabi muuse wuxuu rabbuna rabbigaano alladhi allihi ayu ahaaday a'baasi kull shay'in shay walba khalqahu abuurtiisa siiyay oo ilaahay ayaa shay walba abuuray thumma markaas kadib hadana ku hanuuniyay wadadii uu ku noolaan lahaa iyo maslaxadiisa tusiyay qaala wuxuu fircoon markii su'aashaas looga jawaabay fama baalul qurunti xaalkeedu muxuu yahay الأولى الرئيسي فرعون وحرب إنه سؤال مالك الأخرى هذا أصلا الله الله يعني وحرب إنه يلاهده فكش أنا نجاه والدين تنعها جبت أن كسر جارنا أنا يجوز عابد جيران معنا ونقعنا
هدي هذا وح إيش يكتين كواس كلا يعني سوق جارين هرتاب دمتي أيوة من نارت أشياء كان يجلا يعني حالكم السويان متوقعون بقى موضوع إنه كبحيه مالك لو أفكوا أصاره قفك الداعية وحرب إنه مركب وفهمه قد يلا لقاها الله يكري إنه أكاده مالك لو قفك عن لورهين مركب قارقات قفك ولا جحنا جنايات مسألة أن ماشي أول إنتي للجنيو يي مسألة اللي فوقاني صار لمرة مركب قفك وجديس إلا جرم مريم هل أرن أيكوس عطا هل كاس أرن وإلا توقته مركب فرعون وحرب إن لقت أدعيه إلهي وواحد ربي أدوق متي رسول إلهي بأنهاي حدا وحلقات ربا إن توسناتد وإلهي أدرميشد أصلا وحور ربا أرنت إن أساوكو كوبنانين ضد دينتي أو هراء دينتي إنه أرر إلى القوات محل كود إيجا ورم قال وحوري فما بال القرون قرونتي محوية الأولى الرئيسي حال كود محوية قال نبي موسى وحوري علمها علم جاذا ومرها صار علم جاذا يسدع نقون دونان عند ربي أكتيس أي أحد في كتاب أي حال كودنا كقريه الله محفوظ إلى هذا لا يضل ربي قوم مايو ولا ينسى من إلو بايو كواس هذا صومها وحرب إلى هذا ساسي أهاين ساسي أو وحكشيغو كواس هذا حالتكم مصعوته وحي أهاين إلهي لكل من حساب توضنا إلهي هرتها الله أذيك فرعون وحد على الله الله كواس أنت أسكديشك أذو كسر بحو حلقة عربه نبي موسى بركة وفهم سيئة ماشي وراه فرعون إنه أرضه وكسر عليه كواس وما قالوا علمها علم جوده عند ربي أيها هذا لا يضل ربي يمط مايم ولا ينسى من إلو باي الذي جعل لكم الأرض إلهي يؤصف فهنا أودي سحيابها لوقرته كون كان وحيا لهم بالصيريا الذي جعل لكم الأرض بلك إذن كدغي مهدا جوال إذن كدغي وسلك إذن قادسي لكم إذنك فيها بلك دحديسة صورا ودوين إلهي والله بلك إذن فيدي aad ku kor socotaan wadooyin aad martaanna idin saaray oo hadii ayna wada ayna jirin dadku way dhibtoonayaan oo markay wadooyinku xirmaan ama meel la mara la waayo dadku say u rafaadayaan dadku dhan way wada og yihiin marka nicmooyinka ilaahay dadku uu siiyo waxa kamid ah dhulkana inuu u goglay arinta oo midalan maritaanka wadooyinkana inuu u sahlay marka alladii ja'ala lakum al-ardha allahi dhulka idin ka dhigay mahdan gogol wa salaka qaasiya lakum idinka fiha dhulka dhexdiisa subran wadooyin wa anzala soodaji min as-samaa'i samada xageeda ma anbiya ka soo dajiyay fa akhrajna wan soo saarnay bihi biyaha samada laga soo dajiyay azwaajan noocyo oo min nabatin dhir shatta oo kala duwan ah kulu cuna war'aw daaqsada an'aamakum xoolihiina inna fi dhalika arrinkaas la aayatin aayada ayaa ku sugan li ulunnaha dadka aqliga oo saaxiibka ah xali roobkaas ilaahay uu idin soo dajiyay dhirta idin ka soo saaray waa nicmeen kulu cuna war'aw ku daaqsada an'aamakum xoolihiina inna fi dhalika arrinkaas la aayatin ayaa ku sugan li ulunnaha dadka aqliga oo saaxiibka ah ka faa'iideysa tirsiga maanta inta isku yahay wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh